lafta gareen inuu hadlay maanta oo ka hadlay xildhibaanadii koonfur galbeed ka soo jeeday marka madaxweynaha waa mahadsan yahay qof walba Soomaaliya waxa la rabaa marka horeba inay doorto midnimada ummadda Soomaaliyeed iyo midda dhuleedba inay doorto waana muhiim ninkastoo midnimada Soomaaliyeed wax walba ay ka muhiimsan tahay madaxweynaha qaybaha uu soo qaatana ka mid ahayd in midnimada Soomaaliya ay muqadas tahay waana waxa waaye qof walba Soomaaliya waxa waajib ku ah horta dawladda Itoobiya waxay rabtaa inay annaga badayna iyo barigeena hami waxaan u qaadato marka waxa qof walba Soomaaliya waajib ku ah inuu difaacdo dalkiisa iyo dadkiisa marka siyaasaddu qofka si waa u arki karaa laakiin looma arki karo madax banaanida ummadda Soomaaliyeed iyo dhulkooda iyo hantidooda looma arki karo Nuuruddin in ay ma aragtay siyaasad la geliyo marka ummadda Soomaaliyeed qof walba Soomaaliyana waa inuu difaaco maxaan ku yiraahdaa dalka iyo dadka Nuuruddin وهاجا وحو تاجر وموجي حلبانا دوان تاجر إنه يسي جوجان إذا ماذا إثيوبيا بل أرنت أصلك ورا Nuuruddin horta ciidamada Itoobiya waxay ku joogaan mandate qaar mandate ku joogay qaar aan ku joogin ba inta waa jiraan waxa go'aanka iskale in ay dawladda Itoobiya ay ciidamadeeda ay dalka joogi karaan iyo inay ka baxayaan horta go'aanka waxa iskale dawladda federaalka dawlad goboleedyadana waxay ka mid yihiin dawladda federaalka dawladda waxa go'aanka iskale inay ciidamada Itoobiya go'aan ka gaartana waa dawladda federaalka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya waa ka hadlay dawladda Soomaaliyeedna go'aan ay ka soo saartay in ciidamada Itoobiya ay dalka sii joogaan inay sii joogi doonin marka waxaan leeyahay hadda hadii joogitaankeeda la taageero iyo hadii aan la taageerin dawladda go'aan ayay ka qaadatay dawladda federaalka in ciidamada Itoobiya ay dalka ay ka baxayaan hadii mandatekeeda uu dhamaado Nuuruddin سو دولة حق مولا هدي قوان لقى جاري إثيوبيا حرير كذا يو بحيتان كذا يجويتان كذا ودن كمدحوين ولا هاي ملقاها بونا إن مدحوين دولة قبلات إن وكهالله آيات سوماليا قوان ملي دولة ده إلى هاد Nuuruddin waa su'aal fiican aad u mahadsan tahay horta dawladda federaalka ayaga dalka mas'uulka ah difaaca dalka iyo heshiisiinta caalamiga ayaa mas'uulka ah dawlad goboleedyada waxa ay mas'uul ka yihiin maamulka dawladda hoose iyo dawlad goboleedyada arrimahooda hoose ayay mas'uul ka yihiin laakiin dawladda federaalka ayaa mas'uul ka ah dalka go'aan ka gaari karto wixii ay maaragtay inay joogayaan inay baxayaan marka taasi mid la isku haysto ma aha waana dawladda go'aankeeda marka waxa waaye dawladdu go'aan ay ka soo saartay Nuuruddin qof walba yiraahdo aan dawladda ahayn yiraahdo waa joogaysaana waxa ka sareeya amarka dawladda federaalka kaas ayaana la qaadanaya oo go'aanka saxda ah Nuuruddin وتهاي محد جديد أقول دبنتي قدومية حزب المواطنين الصوماليين دكتور صلاح موسى علي Nuuruddin horta ummadda Soomaaliyeed dhamaan waxaan u jeedinayaa inay midoogaan inay gacmaha isqabsadaan dawladda Itoobiya waqti badan ayay gaadigoobay inay baddi birigo ay ka hesho ummadda Soomaaliyeedna inay baddaasi birigaas waxa u diiday oo ma yiri awooyaasheen iyo aabayaasheen oo ku dhaawacmay oo u dhintay marka taariikhda dib u aqoonsano ama dib u ogaano awooyaasheen meeshay waxay diideenna inaan hadda annaga si basiid ku ogolaano oo hantidayna aan iska dhiibno waxaan leeyahay wax ay aqliyan wanaagsan maaha inay ummadda Soomaaliyeed meel walba joogto inay isgarab qabsadaan midnimada waana muqadas midnimada ummadda Soomaaliyeed in ay hal dhinac ugu soo jeestaan dalkooda iyo dadkooda ay difaacdaan Nuuruddin saas ayaan dhihi lahaa